السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركلة إيه مقال عصب مقال كان ومقالة هوري إن بدن كدوان وحو قصيا عرورت وقتها أي دشان إلا أي كجاريان لح بلود المها مالسي كرا حلبد إن قرميس لسي كرا بلاغو بالله كرا وقتها ومشا لما سؤال هاز ليسوي دي أيان ربا إن هل كان أنا قفايديو لما hooyooyinka cusub iyo hooyooyinka kale oo u joogo caruurta yaryar oo ka hooseedo 6 bilood dhamaantiina soo dhawaada ugu horeyntii hadda ay cusub tahay ku soo dhawo walaal channelkan waxaad ka heli kartaa waxyaabo badan sida cuntooyinka caruurta dhinacyadooda kala duwan ama noocyadooda kala duwan cabitaanaadkooda iyo dhammaan fitamiinaadka caruurta kor u qaado koriimadooda mar walba waxyaabaha aan la wadaago ayaa ah markasto hooyo walba in ay ku faraxdo ama uu farax geliyo channelkan ay ka hesho waxyaabo markasta ka qabtirayo baahida guud ay u baahan tahay oo dhanka caruurteeda koriimadeeda ku saabsan marka channelka ku soo dhawo subscribe saar hada ay cusub tahay like garay muuqaalka sina share garay awlada la joogtana like ta share ta dhammaan wixii fikradaada ah waxa waay meeshan ayaa looga baahan yahay waan niga mahad celinayaa qaabka quruxda badan oo mar walba hadii la socotaan waxyaabaha su'aalooyinka ku saleysan halkan ay igu weydiisaan intaas kadib waxyaabo badan oo waxaa jiro hooyooyinka ay ku kala gedisan yihiin ay ilmaha marka ay jiraan markasto caruurta waqtiga ay dhashaan waxay u baahan yihiin waxyaabo aad u fara badan in loo sameeyo si jirkooda koriimo ku filan oo u helo cunugii ugu horeyntii hooyada markii ay dhasho waxaa la gudboon cunuga in ay ku taxadirto koriimadiisa ay isticmaasho waxyaabaha ayada naaska caanihiisa u badi karo ilmaha had iyo jeer kama maarmaan naaska caanihiisa waana waxyaabaha guud oo markasto lagula taliyo hooyo kasto haday caafimaad qabto in cunugeeda ay u sameedo markuu dhasho si naaska caanihiisa ay ilmihii kobac ku filan ay uga helaan oo dhan kasta ah naaska wuxuu bilaabmaa waqtiga cunuga uu dhasho in la siiyo koriimadiisana aad bay u fara badan tahay oo ilmihii waxay ka dhigtaa ilmo maasha Allah dhinac walba ka dhisan oo aad u koray oo wuxuu ka dhigaa naaska baahiyada uu u baahan yahay cunugaas u dhameystiray waa marka lama huraan naaska cunuga in aad siidid waxyaabaha miisaanka ilmaha lagu kordhiyo ayaana ah naaska in la siiyo ilmaha yaryar si ay u helaan baahiyada gaarka ah mar walba oo naaska aad siinaysid waxaa muhiim ah inaad isticmaashid biyaha cad agtaada soo dhigo maalinkii ugu yaraan 3 litir oo biyo cad ah waa inaad isticmaashid mid kale waa inaad isticmaashid kaniiniga naasnuujinta loo yaqaano waxa kale aad isticmaalaysaa ukunta boorashka caanaha low fatka ah waxaad kaleeto isticmaalaysaa ayu shay digirta ay ku badan tahay spinachka ama koostada qudaarta cagaaran waxyaabahaas oo idil wixii ka saacidi doonaan in naaskaaga uu helo caano ku filan mid kale wixii ka saacidi doonaan in cunugaaga si qurux badan uu kugu koro muhiim waxa ah ilmaha waqtiga ay ku jiraan xilliga koriimada ay u baahan yihiin sida waqtiga ay dhashaan ama bisha koowaad oo kale intay ku guda jiraan waxay u baahan yihiin in loo qubeeyo biyo diiran loogu qubeeyo kadibna loo masaajeeyo oo loogu masaajeeyo saliidaha mar walba jirkooda anfici karo sida saliid saytuunka macsarada iyo baby lotionka ilmaha loogu talagalay dhammaan waxyaabahaas waxay ka caawi doonaan waxyaabo badan oo ilmahaaga jirkooda uu u baahan yahay waxa kale oo muhiim ah ilmaha in loo xiro dhar ka fuqsan waqtiga la jiifinayo waayo ilmaha mar walba lafahooda way kala baxaan oo waxay sameeyaan jimicsi ayay sameeyaan jimicsigaas oo ah in cunugii markasta uu isfid in ilmihii waqti kasta ay isfidiyaan waxayna ka qayb qaadanaysaa lafahooda cunugii inuu kala baxo waana wax Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ku maneystay oo in looga shukriyo ay mudan tahay ilmaha markasta dhar ka fuqsan ayaa lagu jiifiyaa si cunugii nafis uu u dareemo hadii aad u xirtid mara cariiri ah ama aan ku habooneen ama ka gaaban ama aad isdhihi kartid way la egtahay laakiin markii uu jirkiisa kaleeto uu kala fidinayo caqabad ku ah
in maradii ay soo celinaydo waxaad ogaataa xubnihiisa qaaliga ah inay isku reesan karaan ama haddii kale sidaas ay xubnihiisa noqon karaan sida lugahoo kale. ilmaha waxaad arkaysaa lugihiisa aad aan u fidi karin, waxaana ugu wacan waa dharka cariiriga ah oo loo geliyey, waayo ilmaha jirkooda waa murqahaasna haddaysan helin dabac ku filan ama nafis ku filan waxay noqonayaan heer ay isku dhegaan ama haddii kaleeto meesha loogu talagalay cabirkii aysan gaarin. muhiim jiddan waaye in aad fahamtid ilmaha u xir dhar ka foqsan, dhar munaasab ku ah, dhar ay ku jiifo karaan iyo dhar ay ku joogi karaan. maalinkii ugu yaraan 3 mar dharka cunugaaga ka bedel, maadaama uu yahay cunug yar oo umul ah haddana u baahan in loo sameeyo mar walbo jirka in loo jimciyo, in markasta loo tirtiro, habeenkii loo qubeeyo, subaxii oo kale haddaad awoodidna waad u qubeey kartaa. muhiim waxaa ah markasta in aad la socotid xaalada cunugaaga si aan lagaaga warbixin. waa in aad ogaa kartid waxyaabaha ilmaha kobciyo. qubeyska ayaa lambar 1 ugu jiro cunuga. markii loo qubeeyo waliba si fiican loogu qubeeyo habeen kasto waxaad ogaataa wax badan jirkiisa inay kusoo kordhayaan, jimicsi fiican inuu helayo, maqaarkiisa inuu isfurfurayo. laakiin haddii aad istiraadid ma u qubeey kartid, iska dhaaf, xitaa timihiisoo kale way daadanayaan. ilmaha yareer wiil walaa gabar timaha wiigii waxaa u dhaqi kartaa 2 mar ayaa shaambo ku dhaqaysaa. yacni asbuuci 2 mar shaambo ku dhaq, inta kaleeto biyo ku dhaq oo yacni biyo xoogaa diiran oo kale ugu dhaq, kadibna u tirtir, kadibna saliidaha ku haboon u mari una shanleey si timihii aysan uga daadan. haddii aadan timaha yiixda loo yaqaano aadan u deenin waa okay, haddii aad u deysadna u ilaali timahaasi normal ah ugu ilaali adigoo isticmaalin waxyaabo ka awood badan. waxaan isla garanay ilmaha naasnuujinta in ay ku kobcaan. maxay kale ay ku kobci karaan caruurta? waxay kale ay ku kobci karaan in ay kaa helaan markasto in aad ogaatid waqtigii ama timekii aad sii lahayd naaska. hadduu hurdaya kici, naaskiisa sii jiifi, waayo ilmaha yaryar isku celceli 18 ilaa 20 saacadood ayay hurdaan waqtiga umusha ah. jiifkooda aad buu u yaryahay, habeenkii ayaa laga yaabaa xilliga dambe aad inay usoo jeedaan, laakiin maalinkii ay sida normalka ah ay iska hurdaan. ha ku dayn hurdada, waa inaad kicisid, waa inaad ogtahay cunugaaga markasto meesha hurdadiisa ay mareyso. ku kici oo sii naaska, kadibna waxaad sameeydaa dhar ka foqsan u xiro, jiifi. ilmaha ma la sii karaa xulbada? waa su-aal dhextaal ah hooyooyin badan ay weydiiyeen. hadda ka horna waxaan u maleynayaa video inaan kasoo sameeyey muddo sanad ah ayaa kasoo wareegatay saan jeclahay. ilmaha yaryar oo umusha ah xulbada maxay u tartaa? ma ku xanuunsadaan? ma ku faa-iidaan? maxayse u tartaa? ilmaha yaryar xulbada ma la sii karo hadday ka yaryihiin 6 bilood. gabdho badan oo waxaan arkay dhahayo waa la sii karaa. lama sii karo, weliba ma xamili karaan. hadda ayaan ku leeyahay gabaray si fiican dhegahaaga u fur. hadduu kuu joogo beebi yar oo jiro 6 bilood wixii ka hooseeyo xulbad ha iska siinin. sababta aan sidaas kuu leeyahay, xulbada markii la siiyo caruurta yaryar oo ka yar 6 bilood nafshiidkooda ma xamili karo, aad bay u culus tahay. mida kale waxaa laga yaabaa in ay jahawareer ku rido, calooshina ay ku rido caabuq iyo calool majiir. markasto ka foojignaaw in aad siidid ilmo 6 bilood ka hooseeyo xulbad, sababtoo ah awoodeeda aad bay u sareysaa oo ma xamili karaan. ilmaha 6 bilood jiro ayaa lagu taliyaa wax yar oo 7 mir ah in la siiyo ilaa 6 mir. cunug kasii yarna ma la sii karo. isku day in aad ogaatid waxyaabaha ilmahaaga caqabada u keeni karo iyo waxyaabaha faa'iidada ay ka heli karaan. markasta oo xulbada cunugaaga aad siidid asagoo ka yar 6 bilood waa mar walba cunugaaga fursad uu heli karo in caabuqa caloosha ama infectionka caloosha ama calool majiir uu ku dhaco. cunugaasna uu la daala dhaco caloosha caqabad ka haysato, koriimadiisa ay hoos marto, mar walba shuban iyo xanuun uusan ka bixin, adigana aad la daashid oo aad la daala dhacdid. taas intaysan kugu dhicin marka si dabiici ah oo
oo normal ah cunugaaga miisaankiisa ku kordhi. Mar walba waxaa muhiim ah hooyada in ay la socoto marxaladaha kala gedisan ay caruurta marayaan. Xitaa waa aragteen saxarada caruurta way isbedeshaa marba marka ka dambeyso, si nooc ah ayay noqotaa, yacni bilba bisha ka dambeyso. Marka waxaa muhiim ah in aad fahantid cunugaaga waxyaabaha kusoo kordho, aqoon badanna aad u leedahay, waayo taas ayaa aad kuugu wanaagsan oo waxyaabo badan ayaad ka baranaysaa. ilmaha ka dambeeyo waad kusii qalin jabinaysaa oo waxaad arki doontaa adigoo waxyaabo badan oo information ah aad u bartay, misana dadka kaleeto ku caawisay waxyaabaha aad aragtay, si hooyooyinka cusub ayagana ay u helaan waxyaabo ka cilad tiro waxyaabihii ay arkeen, ama haddii kaleeto caqabadii haysatay ee uga reystaan. waxyaabo badan oo waxaa jiro aad u fudud oo ilmaha umusha waqtiga ay yihiin ilaa 6 bilood ay ka gaarayaan, ilmahaaga ilmo qurux badan kaaga dhigayo. waxaana muhiim ah waxyaabahaas in aad ogaatid, sida naaska cunuga in aad siidid naaska weliba uu ka helo caano ku filan. sababta naaska loogu taliyo in ilmaha la siiyo waxawaaye cuduro badan ayuu daaweeyaa, lafaha ilmaha ayuu kobciyaa, maskaxdooda ayuu isku dheelitiraa, maqaarkooda ayuu ku qurxiyaa. mida kale miisaan fiican ayuu ilmaha siiyaa naaska. haddaadan ka maarmin naaska oo aad leedahay caano ayaan ugu darayaa cunugeyga, waa in aad u raadisid caanaha ku habboon oo weliba calooshiisa aan caqabado kala gedisan aan ku rideynin. caano waxaa jiro ilmaha caloosha ka qabto, aadna tacbaan ugu noqdo, xitaa shuban ay ku sababaan. dhammaan waxyaabahaas aad uga fiirso ilaa cunugaaga 6 bilood uu ka gaarayo oo adkeyso. haddii aad caafimaad qabtid, cilad aan kaa hor istaagaynin aysan ku haysan, in aad siidid naaska. markasto muhiim ayuu yahay naaska, booska koowaad ayuuna ku jiraa. weliba waxyaabaha aadka u fiican ayuu ka mid yahay in ilmaha la siiyo. ilmaha aan la siinin difaacooda wuu lumaa, ma ka baxaan cudurada yaryar iyo cudurada kaleba. ilaahay hanaga haayo, awlaadana allah noo xafido. waxaa kale oo jiro fitamiin yar oo la siiyo caruurta waqtiga ay dhashaan oo loo yaqaano vitamin D ilaa ay ka gaarayaan sanad. waxyaabo badan ayuu u qabtaa, sida in uu siiyo calcium ku filan cunugii lafihiisa, uu ka qayb qaato si qurux badan inuu u koro, kobac fiicanna uu helo. vitamin D-ga keligiisa ayaa la siiyaa asagoo ku jirin wax kale oo yacni fitamiinaad ah ama maadadan singiga loo yaqaano ama ironta looma baahno. vitamin D kaliya ayaa la rabaa si ilmihii calooshiisa wax kale aan loogu fiirin. waa in aad siidid vitamin D-ga. mid waxaa jiro vitamin D maada singi la lahayo iron, waxyaabahaas ay ku jiraan, kadibna ilmaha la siiyo 4 bilood markuu gaaro ilaa iyo 5 sano. kaas markuu la talinayay ilmahaaga hadduu dhasho vitamin D-ga kaliya oo maadadaas vitamin D-ga ku jirto, sababtoo ah waxyaabo badan oo fitamiinaad ah oo jirkiisa ka maqan ayuu ka helayaa. qaasatan vitamin D-ga ayuu kordhinayaa. markasto waxyaabaha aadka u habboon in aad iiga mahad celisin ayaa ah in aan ifiyo mar walba waxyaabaha waxtarkani leh, misana aad u weyn aad uga faa'iidaan. markasto waxaa aan jeclahay hooyooyinka Soomaaliyeed inay uga faa'iideystaan waxyaabahan soo gudbiyo, si ilmaha ayaga ay haystaan oo kale ay u arkaan natiijo dhameystiran oo cunugooda ay kaga qancaan qaabka korayo. mar walbo ilmaha waxay u baahan yihiin isku dheelatir nololeedkaas hadduusan cunugaaga uusan kaa helin, waxyaabo badan ayaa aad u lumi doontaa, adigana niyad ahaan uma joogi doontid oo markasto waxaa kugu dhacayo depression. isku day marka in ilmahaaga aad caafimaadkooda ka taxadirtid inta uu yaryahay. waqtiga uu gaaro xilliga cuntadana waa in aad siidid waqtiga ku habboon iyo timeka ku habboon, cunto u dhiganto caafimaadkiisa iyo da-da uu jiro munaasib ku ah. baybiyad yar ayaa dusha ii saaran, korka ayay ii saaran tahay. marka muuqaalka saas ayaan iigu duubayaa. adinka dhiirigelintiina meesha iisoo geliya insha allah. like-ta, sheerta, maxaa loo yaqaanaa, wixii fikrad ah oo hoos ay igu soo qori kartiin waa kaasaa. marka sida aan igu dadaalayo igula dadaala oo muuqaal walba aan soo geliyo
fiirsada like-tana hal saaro ugu yaraan 3 qof u sheergareey muuqaalada si hooyooyinka kale ay uga faa'iidaan kulley waan arki doonaa insha Allah meesha aan isla gaarno waxaan rajeynayaa meel qurux badan inay noqoto aad u weyn waan iga mahadcelinayaa markasto sida aad igu duceysaan waxaan leeyahay Ilaahay haniga abaal siiyo muuqaalkan meel sare gaarsiiya gabdho aadna waxaan rajeynayaa inaad uga faa'iidaan awlaadana Allah noo xafido dhamaanteena Allahna barak dhamaanteena Allahna xafido wassalaamu calaykum